soo dhawaada mar walba waxaa fiican meesha aad wax marsiinaysaan inaad la wadaagtaan groupka usbuuciiba hal mar ugu yaraan marka dibloomada hadda waxaa igu jira koorsooyinka dibloomada IT support pro oo ilaa 7 koorso hadda diyaar ka tahay marka waxaa laga yaabaa in adiga lagu soo fasaxo 2 koorso ama 1 koorso bishiiba balse meesha maraysa ku xiran tahay tusaale haddaan ka soo qaato koorsadan IT fundamental ayaan baranayo kale ama arday cusub baan ahay ama arday hore u dhameeyay baan ahay waxaan rabaa koorsada ilaa 20 dhowr cashiro waxa ku jirta itusa oo practical tusaale kale haddaan u soo qaato oo star course ita iraahdo cashirka cutubka saddexaad oo koorsada ama cutubka labaad ayaan filaya inuu yahay waxa ku jira cashir iska basiga oo practice sida using workstation oo kale si loo arko horta wixii ina active aad tahay oo qof wixii sameynaya aad tahay cashirkan oo kale hadda ita soo taabsi sign into windows haddii aan daarto cashirkan oon iraahdo play stebiska macalinka oo marayo waxa uu isticmaalayo haddaan rabo inaan la sameeyo computer windows 10 oo ku salaysan yahay balse windows 11 kaaga xataa waad ku salayn kartaa hadda haddii aan qaarada yarta iska xiro asoo sidaa igu shidan marka macalinka wuxuu sameynaya aan arko inta istaajiyo anigu marka isku dayo sign in oo sameeyo hadda Soomahan wuxuu sameeyay sign in computer wuxuu yiri laba si aan loo gali karaa ama password ama pin haye waa uu soo galay kadib wuxuu yiri desktopku sidaan uu ogyahay aniga marka waxaan rabaa markaas inaan samaysto computer aniga gaar ho labaad hadda anigu computer labaad idinku tusi karo mid virtual and ku virtualization waa maxay koorso kale lagu baran doona ilaahay hadoo idmo balse computer kale oo practice ku sameeyay hadda heli karto Windows 11 ku jira ama isla kaagaba meeshan wuxuu yiri macallinku waa desktop haye halkan wuxuu yiri hadda rabto customization inaad samayso waxaad samayn kartaa inaad tiraahdo sort by ama view by large icons inaad dhigi karto kuwan soo weynaanayaan haddii aan rabo halkan wuxuu yiri oo kale waxyaabahan ku jira halkan waxa la yiraahdaa bin oo ah pin icons oo drag and drop lagu sameey karo right click inta lagu siiyo resize la dhihi karo iyo wixii lamida right click inta halkan ku siiyay oo wuxuu yiri tan hadii looga laga qaado waxa la dhigi karaa bidixda waxa la dhigi karaa kor waxa la dhigi karaa hoos bidix midig meel walba inta loo qabto marka hadii aad wixii ka shaqaysiin oodan isku dayin oo naftii aad dhibin oodan wixii na tusin usbuuciiba mar at least waxaad qabatay waa laga fiican yahay in maartay oo runtii aad iska daawato iska socoto si wixii at least accountability ay u dhacdo waa sidaas oo inaad maartay computerka aad practice ku samaysay inaad at least usbuuci hal cashir laba cashir inaad tusto inaad wixii active taasa oo aragno midda kale waxaa jirta in koorsada kale hadaa ku laabto hadii aad marayso kale mobile devices oo ah koorsada laptopyada la furfurayo cashirada practice-ka ilaa iyo 20 cashir waa gaarayaan ayadana waxa loo baahay inaad mobile device markaa tagto oo ah tan ku xigta IT fundamentalka mobile device markaa tagto mar walba hoos ka soo bilaabay koorsada ugu hooseeda ka soo bilaabay kor markaa u soo soconay star course aan leedahay waxaa arkaysaa koorsada inay cashiro badan ku jiraan haddii cutubadeeda aan rabno inaan soo furano halkan ku dhufanno kadib waxaan arki karnaa in halkan ay jiraan mobile first wall in ay tahay mobile device screen search okay waa modulekooda cashirkiisa tusta ah haddii aan tago installing waa cashirka afraada ugu muhiimsan oo ah haddii aan tago tusaale oo kale laptop hinges waa idin tusay haddii aan tagno laptop memory upgrade oo kale tusaale oo kale RAM upgrade ama RAM replacement haddii aan ku dhufanno oo nidhaahno play cashirkan ardayga waxa looga baahay inuu at least laptop inta furfuro inuu RAM ka bedeli karo maaha inuu ardaygu oo cashirka iska daawado kaliya inuu tusaan rabnaa sidee uu ku tusaya marka waxa rabaa tusaale horteeda waxa yaala waa laptop HP oo qoloftan aan ka furay isaana 4 bool inta ka furan ka qaaday waa inaad tiraahdaa macalinku wuxuu sameeyay inuu laptop upgrade ku sameeyo anigana waxaan rabaa inaan laptop upgrade ku sameeyo hadda laba memory heli karin sideedoo kale hadda adiga waxa laga baahan laptopka inta furto inaad arki karto memorygaaga waa tan oo badanaa computerka waxba lagama qabto adoonan ka siibin batteriga computerka ina batteriga ka siibtaa mar walba lagu taliyaa laptopka marka batterigan ka siibaynaa adoo batteriga saa uga siibaya tartiibtaas laptopkaaga aniga kugula talimaya inaad ku samayso practice waxaan kugula talinaya inaad laptop kale oo adigu uun kaa halaabay ama mid duqa oo guriga yaala inaad furfurto marka batteriga ka siib mar walba laptopka ka shaqaynayso memoryga ka siib markaa kadib waa kana DIM1 waxa loo soo gaabiyay dual inline memory module waa soo baratay dual inline memory module laptopka wuxuu isticmaalaa sodium waa DDR4 ku qoran inay tahay okay kadib waxaad gelinaysaa DIM1 midkan koowaad haye waxa leedahay upgrade 8GB waaye kana waxa ku sameeyaa leedahay haddana 8GB kale ama waad niyeysanaysaa kan hadii laga soo furo kana lagu upgrade lagu sameey karaa marka hadii aad u baahato itusto wax muhiim ah marka saasa u gelisay waxa leedahay marka laptopka memorygiisa upgrade ku sameey tan waa hard drive ah M.2 interface oo SSD ah marka laptopkan ayaan maanta soo fiiriyay waa sidaas macallin cashirka oo ahna koorsadaas kamid ah Combatia A+ mobile devices ayaan ka soo diyaariyay cashirkan waa practice-kiisii ugu dambeyn adiga koorsadaas waxa la rabaa in at least aad laptopka memoryga upgrade ku sameey karto hard drive ka bedeli karto aad arki karto hingeska xataa haduu jabo intii karaankaaga ah anoo kuma lihin wax walba aad sameey kartaa oo qalab aad heli kartaa
laakiin inaad na tusto demonstration inaad tahay arday un wixii samaynaya kanoo kale waxa la yidhahdo waan soo baranay wax walba ku saabsan laptopkan dulmar guudan kusoo samaynay marka haddii aan tagno koorsada kale oo la yidhaahdo ayadana haddii aan tagno koorsada la yidhaahdo mobile devices hadda waa ka baxday tusaaloo kale waxaad ku jirtaa koorsada networkingka soo router inta qaadato waxa lagaaga baahan yahay inaad soo router adoo configuration ku samaynaya inaad capture kusoo samayso hadda tusaaloo kale mobile device waxaa noogu xiga 2.0 networking cashirka soo routerka inta tagto aad u muhiim u yahay inaad iska socoto maaha inaad fiilo adoo samaynayna soo tusto wey okay koorsadan hadda tusaaloo kale ayadaad ku dhex jirtaa waa dul mar guud oo aan ka wadaa laakiin tusaale ka qiyaas qaado haddaan hadda idin tuso cutubada koorsada oon idhaahdo halkan hoos soco cashiro tus badan baa ka buuxa ilaa 40 waa dhan yihiin lan iyo wan iyo soho waxa ay kala yihiin halkan ku sharaxnay okay hoos soco haye interface waa maxay mac address waa maxay soho router iyo embedded ayadoo markaas sharaxaya waa maxay 4 port embedded switch waxay ku jirtaa halkan soho router soo qaado kadib na tusbal noo sharax waay soho router ay u baahan tahay qof walba ADSL gurigiisa u yaala routerkaaga soo qabo boortiyadiisa noo sharax adoo physically u samaynaya ama adoo configurationkiisa dhex galaya casharadii dhan waa soo baratay inta furato browserka halkan kadib adoo routerkaaga dhex galaya inaan tustaan kaa rabnaa browserka hadda haddii aan furo routerkaaga markaas kadib adoo galaya hadda aniga routerkayga waxaan ku galaa waa 192.168 ku ogaaday waxaan sameeyey inaan galo gadwaygayga inaan ogaado default gadwaygayga waxa uu yahay anoo dhahaya cmd inta tago intaan idhaahdo kadib ku qoraya halkan waxaabia ku soo baratay oo ah ib config kadib aa ogaato default gadwaygaaga kadib passwordkiisa inta qaadata halkan aa ku qorto ib addresskiisa passwordkiisa hadda aniga internetkaysa aan u xuraya shirkad somta la yidhaaho Soomaaliya ku taala ii keenta internet routerkaan oo galaa soo routerkayga kadib waxaa ku xiran intaanoo device 11 device oo wireless 0 device oo wired hal telefoon ku xiran iyo wixii lamida configuration dhan halkaan ka arki karaa oo haddii aan tago advance oo kale iyo wixii lamida marka fadlan waxaan idinka codsanaynaa in aad wixii idinkoo samaynaya aad soo duubtaan usbuucii ugu yaraan hal mar in aad soo gudbisaan waxyaabaha qabateen waxyaabaha samayseen arday walba wuxuu xil ka saaran yahay inuu soo duubo tusaale kale loom waxa la yiraahdaa jira oo loom.com